السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. haddii cashirkiini qaybtiisa labaad oo xirfadaha ku saabsan aan laba qodoban ka yiraahdo. Marka xirfadaha horta marka laga hadlayo dumar iyo ragba waa loo kala siman yahay, laakiin dumarkana waxyaabo especially ay jiro inay bartaan, ragana waxyaabo especially way leeyihiin, laakiin intooda badan way ku wada siman yihiin. Marka waxaa laga rabaa qof walbo in xirfad gooni inuu barto. maanta adduunkani waa laga soo gudbay in qof shaqaale loo noqdo ama adoon loo noqdo. Adoonnimo waa dulinimo. dadna adoonnimada bay ku farxayaan, dadna waxay jecel yihiin wax iskoodii ayaga ay u leeyihiin inay samaystaan ee xur ay u ahaadaan. waayo marka adiga xur tahay, xilligaa doonta hurda ka soo kacee, cid kugu qaylinayso ma jirto, waayo adiga ayaa go'aankaaga iska leh. laakiin marka adiga cid u shaqaynayso go'aan ma lihid, waxaa tahay adoon oo macna lujum ku jiro. xilligii la doono layska burin karo, xilligii la doonana la adoonsan karo ayaa tahay. marka caqligaaga ha shaqeeyo, inaad qof xur noqoto aad bay muhiim u tahay. marka ka fikir dantaadina iyo horumarkaagina. qofka xurku uu yahay qof kaa wanaagsan, kaa caqli fiican maahan, laakiin qof kaa fikir fiican waaye. adigana noqo dadka fikrayo inaad ka mid noqotid. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.